caasimada muqdisho ee Soomaaliya muddooyinkii u dambeeyay waxa ku soo badanayay dhac loo geysanayo shacabka ku nool gudaha caasimada iyadoo la adeegsanaya ama bal isticmaalaya magaca hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya ee NISA. shacabka ku nool gudaha caasimada ayaa la tacaalay muddooyinkii u dambeeyay dhac loogu geysanayo magaca NISA iyadoo la soo tabinayay saacadihii la soo dhaafay iyo sidoo kale maalmihii u dambeeyay in shakhsiyaad gaar ah isticmaala magaca hay'adda nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya ee NISA isticmaalaya ay dhac bareer ay u geysteen shacab ku nool gudaha caasimada iyagoo si farsamo leh u isticmaalaya isla markaana u sheegaya inay ka shakiyeen sidoo kalena ay geyn doonaan xarumaha ugu dhow si loola xisaabtamo qofkaasi iyo in baaritaan la marsiiyo. saacadii la soo dhaafay hadalhaynta ugu badan gudaha caasimada waxay ahayd dhaca loo geysanayo shacabka ku nool caasimada iyadoo la isticmaalayo magaca darcadka ama ilaalada shacabka gudaha caasimada oo hoos tagta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ee NISA. siyaabo kala duwan ayaa loo fasiray arrinkan oo ku soo batay gudaha caasimada. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa diiwaan gelisay sanadka riboodkii ugu badnaa oo dhaca oo lagu geysto shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha caasimada kaasoo lagu sheegay in sanadka uu noqday riboodka ugu badan oo ay diiwaan geliso maxkamadda dhac loo geysay shacabka isla markaa xilli iyadoo la isticmaalayo magaca hay'adda nabad sugidda ee qaranka. shacabka ku nool caasimada ayaa la tacaalay muddooyinkii u dambeeyay iyo sidoo kale qaar ka mid ah xaafadaha Muqdisho ayay ka cabaadayeen dad sheegta inay ka tirsan yihiin hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka kadibna dhac u geysta sidoo kale hantida qofku heeso ayagoo isticmaalaya tuurey iyo bistoolado halka qaar kalena ay si farsamaysan ay u dhacayeen shacabka ku nool gudaha caasimada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay halka qaar ay sheegeen in loo baahan yahay in la iska ilaaliyo isla markaana la ogaado qofka halka uu ka socdo iyo sidoo kale aqoonsigiisa dhabta taasoo caqabad ay ku noqonayso shakhsiyaadka u shaqeeya hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya. sidoo kale hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ilaa imika wax war oo rasmi ah kama aysan soo saarin hay'adda loo jeediyo waa in la isticmaalo magaceeda si dadka loo dhaco iyadoo gudaha caasimada Soomaaliya ay ka howlgalayaan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka haddana la isticmaalo magaceeda in dhac loogu geysto ilaa hadda war kama aysan soo saarin. wixii faahfaahin kale ka soo kordha arrinkan halkan oo TTN Somali TV kala socodsiinay.